السلام عليكم ardayda waan salaamay topican aan ka hadlayo mindset ayaa la yiraahdaa waa cashar English mindset hadaba maxaa weeye mindset waxaa weeye waa qayb ka mid ah self awareness kan waxaa weeye is ogaanshaha ama iska warheynta shakhsiyadeed weeye waana life skill lesson waaye hadaba reasonka u qaata casharkan usoo xusho waxay tahay kadib marka arkay ardayda in mindsetkooda qaldan yahay ayaa rabaa in adinkeeda la wadaago hore hadaba maqashay arigan oo wax badan aad ka fahmin ama ka fahmi weyday waa u baahan tahay casharka inaad dhageystid haddaa weligaa maqlin oo hadda kugu cusub yahayna waa kusoo dhaweyneynaa hadaba mindset waa maxay mindset waxaa weye waa the way a person thinks sida qofku u fikiro beliefkiisa iyo attitude-ka ayaa la yiraahdaa mindset af soomaali ahaan markaan soo koobno waxaa weeye waa hab fikirka aaminaada qofka siduu wax u aamino ama nolosha u aamino ama wax walba siduu ka aaminsan yahay iyo generally attitude-ka way soo gashaa iyo sidoo kale waxaan dhihi karnaa the way qofka u view gareeyo how to view life-ka waxaa waaye aragtida guud oo nolosha aad ka aaminsan tahay view of life and situationska sida aad nolosha u aragtid iyo xaaladaha kugu hareereysan ayaa la yiraahdaa mindset hadaba intaan markaan sheegnay waxaa intaan ay saameysaa how ama ay sheebgareysaa how to react sida aad u falcelisid how to approach ama approachka qaabka aad ugu dhawaanaysid inaad wax ku xalisid ama arrin aad ku sameysid dareenka iyo behaviorka oo ah habdhaqankaada so mindsetka si guud af soomaali haddaa ugu sheegno waxaa weeye waa hab fikirkaada aad wax u aragtid u fikirtid ama wax u aragtid sida wax u aamintid ama waxa aad ka aaminsantahay shay ama nolosha ama qof waxaad ka aamintid iyo reactionka saa uga falcelisid caqabadaha kusoo wajahaya nolosha oo kale waxaas ayaa la yiraahdaa mindset mindsetka waxaa weeye waa habfikirka saa nolosha u aragtid iyo sida aad shay ama arrin ka aaminsan tahay adiga markay ay joogto shakhsiyan ma fahamte soo marka noocyo kala duwan ayay leedahay mindsetka waa arkaynaa noocyadaas kala duwan types of mindset waxaa weeye waa noocyada kala duwan oo mindsetka number one haddaa ku bilaano waa fixed mindset in a simple and lame language waxaa weeye qof aaminsan in wax walba sidooda loo daayo qof aaminsan in wax walba sidooda loo daayo waxna laga bedelin waxna lagu darin sidooda lagu qaato su'aal ahaan oo kale waa qof mar walba yiraahda I cannot ma awoodi ma kari I cannot change isma bedeli karo I cannot speak language luqada kuma hadli karo I cannot do bla bla waxa ma sameyn karo qof aaminsan waaye calaashan qofkan wuxuu iska dhigay wuu isxadiday ama fix ayuu ka dhigay wax meeshooda taagan oo waxba laga bedeli karo waxna lagu dari karo waxna laga jari karin buu maskaxdiisa ka dhigay ama hab fikirkiisa iyo noloshiisa ayuu sidaas ku qaabay alright sidoo kale qofkaas wuxuu dhahay I'm bad at aniga waa ku xumahay inaan waxbarashada waan ku xumahay ganacsiga waan ku xumahay hadalka waan ku xumahay aniga kuma wanaagsani inaan imtixaanaadka ku guuleysto maadadaas iyo maadadaas waan ku dhacaa sidoo kale qofkaas wuxuu sameeyaa avoid challenge caqabaduhu ka fogaadaa caqabad dhan ma arki karo wuu ka cararaa caqabada wax kastoo caqabad leh wuu isaga dheeraadaa sidoo kale fears of failure wuxuu ka baqaa in uu mar walba guuldareysto ayuu ka baqaa soo mar walba wuxuu joogaa isaga caqabadii wuu ka fogaanaya guuldaradana wuu ka fogaanaya because wuxuu aaminsan waxaa ma sameyn kari dad ardaydeeda ayaa waxay dhahaan luuqada rabaa inaan barno macalin wixii markaa u sharaxo casharka ee bilaabaan waxaa arkaysaa ardaydoo kala carartay ama waxay ku leeyihiin aniga waxaan waxba kama bedel ma baran karaba luuqad si kasta haddaa isugu day wax walbaa sameeyey ma baran kariba maba lii qorinba maskaxdayda waxaa weeye inay wax barato wax galaan wax fahamto looguma talagelin looguma qadarin waxaa weeye qofkaas wuxuu bilaabaa inuu eedeeyo qadarti alla dusha ka saaro wuxuu ilaah baa ii qoray waxaan inay igu dhacaan ilaah baa ii qoray inaan waxbarashada ku fiicnaan waayo waa qadar alla weeye inaan aniga damiin ahaado oo waxbana aanan wax ka bedeli karin ama damiin iska aad ilaah baa ii qoro ku leeyahay of course qadarta way jirtaa waa aaminsanahay muslimiin baa nahay laakiin waxyaaba dadaalkooda adiga lagaaga baahan yahay shakhsiyan oo awoodaha ilaahay ku siiyey nimcooyinka haystid loo baahan yahay in aad u isticmaashid baa jiraan intii baa xadiday waxaa maskaxdaada iyo fikirkaada waxaad ka dhigtay mid go-aan ama mid meel saaran saalaan
waxaa la xiriirta iyadana negativeka waxaa weeye waa qof maskaxiyan wax walba xumaan ama dhanka xun wax ka fiiriya tusaalahaantan waxay la xiriirtaa waa dareen tanna waxaa weeye waa ficliyan waxyaaba loo sameynayo emotional related baa dhanay qofka negativeka wuxuu sameeya ama negative mindsetka mar walba cabsiya ku jirto mar walba shaki baa ku jiro mar walba wuxuu problemsyo iyo waxyaabo badan buu ka fikiraa mar walba limitations ba maskaxdiisa iyo awoodiisa dhan wuu xadiday sidoo kale wax rajo ah malahan mar walba wuxuu fishaa wax xun soo qof waxaa weeye isaga dhanka xumaanta bas leh maskaxdiisa ku jeediya oo wanaaga dhan laga qariyay su-aalahaan kale qof baa arkaysaa iska waran baad leedahay maanta adiga u jeedo inuu nimco haysto wuxuu ku leeyahay ma anaa wax haysto gaaja u dhintay shaqo la-aan baa hayso ba-ayo madaxa baa laga hayaa dhabar baa laga hayaa waxaana wuxuu kuu sheegayaa oo wada negative ah xumaan ah hal mar ma dhahaayo xalay si fiican baa u socday alxamdulilah waxaa cunan waa haysta lixdeeda lixaadna waa qaba kuma dhahay wax allaala wixii caqabado ama xumaantiibu maanta dhan kaaga sheekeena wuxuu ku leeyahay xaas xun baa haystaa caruurteydii way dhibaan maanta biilkiiba waxbaa ka maqan lacagta ninkii waxbuu igu yiri hadal xun buu igu dhahay islaantii wax xun bay igu tiri maanto dhan wax wanaagsan kama sheekeynayo maskaxdiisa dhanba waxay ku foorartaa xumaantii iyo rajo la-aantii iyo waxyaabaha aanan wanaagsaneyn haddaba midda saddexaad waxaa growth mindset tan waa simply waxaa waaye waa qof maskaxiyan aaminsan in wax la hormarin karo xal la heli karo qaladka laga baran karo casharo ku anfaca mustaqbalka caqabadaha la aqbalo oo la soo dhaweeyo tusaalahaan oo kale waxbaa rabtaa waxbaa imtixaan baa ku dhacday dan waxaa leeda waa isku dayaya si fiican baa wax u akhrisanaya si imtixaanka soo socda aa u guuleysto ama business baa bilowda waa ku dhacday waxaa leeda in kale adana qaabab kale isku dayaya si aa horumar u sameeyo ama wax ugu hagaajiyo caqabad baa kusoo wajahday ma calaacalaysa ma waxaynaysa xalkii baa raadinaysaa qalad baa kaa dhacay qaladkaad waxbaa ka baranaysa hore u soconaysaa ma joogaysid way qaladka u sameeyey laakiin qaladkaas inuu dhici kara aaminsan tahay oo wax laga baran karo oo mustaqbalku anfaca caqabad baa kusoo wajahday waa soo dhaweynaysaa waa xalkiina u raadinaysaa waa ka soconaysaa soo qofkan waa qof maskaxiyan in maskaxda la kobciyo oo korto oo wax la faa'iidaysto oo wax la isku dayo oo isku dayga aaminsan waayo wuxuuna aaminsan yahay I can change aniga dabeecaddeedan xun waxaa weeye wax waan bedeli karaa xanaaqan oo dadka aan baabi'ina markaa xanaaqo waa xakameyn karaa wax walba waan awoodaa waan sameyn karaa waa isku dayi karaa qof aaminsan wa waxayna la xiriirta positiveka waa qof dhanka wanaagga mar walba wax ka fiiriya muxuu sameeya waa qof mar walba rajo fisho ma qof mar walba dhanka wanaagsan wax ka fisho waa qof ku mashquulo xalka in si wax walba la xaliyo aaminsan waa qof aaminsan sidoo kale in wax kasta la horumarin karo la wanaajin karo oo sidooda si ka fiican laga dhigi karo buu qofkan aaminsan yahay haddaba reasonka usoo qaatay mindset inaan ka hadlo waxay tahay ardaydeyda ayaa rabaa inay fahmaan mindsetkaada fikirkaada iyo sida wax u aaminaysid waa bedeli kartaa soo casharka next waxaan ka hadli doonaa sida u bedeli kartid mindsetkaada ama mindsetka xun ama negativeka ama fixiga kugu jira inaad bedeli kartid